mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Burco iyo xildhibaanada golaha deegaanka Burco ayaa si wada jir oo loola wada banayn iyo dayactir isugu jira uga fuliyay qaar ka mid ah wadooyinka dhexmara xaafadaha iyo laamiga weyn ee magaalada Burco. waxaana ololahan lagu dayactirayo jidka weyn ee isku xidha magaalada Berbere iyo Burco ee halbowlaha u ah, isla markaasna lagu banaynayo wadooyinka xaafadaha magaalada Burco ku bogaadiyay dowladda hoose, odayaasha iyo waxgaradka xaafadaha ay wadooyinkaasi ku yaalaan. agaasimaha howlaha guud ee dowladda hoose xildhibaan Shiina Faliid iyo ku-xigeenka duqa degmada Burco Maxamed Xaday ayaa ka hadlay wadada dayactirka lagu sameeyay. agaasimaha howlaha guud ee dowladda hoose Burco waxaanu kabkabaynaa wadada googoday, waxaanu imarka ka soo bilownay ilaa iyo Titani xagga iyo hodheelada shaqadooda, waxaanu wadaynaa wadada dowladda hoose ku beegan ilaa ay takale kaga dartay muxuu ahaa la sameeyay rooga ilaa intaa waanu kabkabaynaa. maanta wanagaasoo gacantaan ku haynaa iminka muddo 3 shaab ay soconaysay, meel wanaagsanna way maraysaa. waxaanu rajaynaynaa wax ka sii badan inaanu ka qabanno sida dhinacyada oo kale. waxaanu leenahay dadweynaha xaafadda laftooda iyo magaalada Burcaba ka qayb qaata contributionka wadooyinka si wadooyin badan inoogu samaysmaan. waxaanu dib habeen ku sameeynaa wadadii dowladda hoose ka soo bilaamaysa ilaa iyo meesha la yiraahdo hoteelka weyn la yiraahdo Ramad wixii ka sokeeyaan dib habeen ku sameeynay. maalintii labaad baanu maraynaa insha Allah ta'ala biri baan gabagaboobaysaa. waxa ay samaysay wadadu xoogaa googo ah waana meeshii magaalada laga soo galiyay. saadaraad baanu hawlgal ka fulinay haddaan dowladda hoose nahay, waxaanay qayb ka tahay hawlgallada had iyo jeer wadooyinka aanu magaalada ka fulinayno qaybaheeda kala duwan, haday dayactir tahay iyo haday wado cusub la sameeyay tahayba. xildhibaan Khadar iyo duqa degmada Burco Maxamed Muraado iyaguna ka hadlay xaafadaha ay wada banaynta ka fuliyeen ayaa shirkadaha korontada ka codsaday inay biraha ka saaraan meelaha iskooysyada iyo wadooyinka dhexdeeda iyagoo u mahad celiyay dadka degan xaafadaha ay ka shaqaynayaan oo ku bogaadiyeen sida ay ula shaqeeyeen. wada banayntana waan wadaynaa qoliyaha leerka waxaanu faraynaa oo waxaanu leenahay idinkoo maadsan wax ka saartaan biraha ku jira wadooyinka wayna ka saartaan si hawshu noogu fudaato. xaafadan aan joognaa waa xaafadda Caqiibo, waxaana saaka laga wadaa wadan banayn baa laga wadaa. waxa isaguna wiigii hore aan ka shaqeynay xaafadda Farax Suusle area, marka marba meeshii xiran iyo meeshii loo baahnaa laga shaqeeyo waa laga shaqeynaya. barnaynta wiigii walba cala la qal hadii 5 6 7 8 wado marba wixii la heli karayo la baneeyo. waxaan aaminsanahay magaalada inay noqonayso wadooyinkeedu wadooyin aad u qiimo badan. waxaan u mahadnaqaynaa xaafadda iyo odayaasha iyo gudida xaafadda oo aad ula shaqeysay gaadiidkan dowladda hoose iyo xildhibaanada. Mustafa Ismaan, magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.